Wadayaal ku soo dhawaada warka shabakada warartii qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo isugu tagaya magaalada Garowe gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe oo amabaxay safar dibadeed oo ku gaadhaya dalka Koonfur Afrika mas'uul ka tirsanaa maamulka degmada Yaaqshiid oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh baan idin haynaa daawadayaal haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan maamul goboleedka Puntland ayaa martigelinaya shir guud oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kaasi oo dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal sida ay noo xaqiijiyeen ila wareegyo muhiim ah arrintan ayaa lagu go'aamiyay wada hadaladii ay magaalada Garowe ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni inkastoo aan la shaacin goorta la qabanayo shirkaasi xasaasiga ah wararka ayaa sheegaya in shirka uu furmayo madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada diiradda lagu saari doono xaaladda guud ahaan dalka gaar ahaan howlaha horyaala dawladda cusub sida ay wada shaqayn lahaayeen labada dhinac sida ay ogaatay warbaahinta waxaa shirkana lagu soo qaadi doonaa madmadowga soo kala dhexgala dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxaana arrimaha kale la gorfayn doona ka mid ah muddo kororsiga halka sano ah ee ay samaysteen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed sidoo kale waxa ay madaxdu ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo gurmadka abaaraha haatan ka jira dalka shirkan ayaa ku soo aadaya xilli xasaasiya isla markaana uu jiro madmadow haatan soo kala dhexgala dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay isbedel siyaasadeed kadib doorashadii 15 May ee uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo kadib soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo wafdi oo kacayo ayaa maanta u amabaxay safar dibadeed oo uu ku aaday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ujeedka safarka Aadan Madoobe ayaa ah ka qaybgalka shirweynaha gudoomiyaasha baarlamaanka Afrika oo ka dhacaya Johannesburg gudoomiyaha ayaa madasha ku soo bandhigi doona horumarada golaha shacabka iyo sida ay wada shaqayn buuxda ula yeelan lahaayeen baarlamaanka Afrika iyo kan Soomaaliya Aadan Madoobe ayaa dhinaca kale kulamo gargaar la yeelan doona xubnaha ka soo qaybgalaya Pan African Parliament isagoo kala hadli doona arrimaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu gudoomiyaha golaha shacabka la shiri doona jaaliyada Soomaaliyeed iyo ganacsatada ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika isagoo ka dhageysan doona cabashooyinka ay qabaan oo ay ugu horeysay dhibaatooyinka loogu geysto dalkaasi safarka Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor uu soo xirmay kala fadhigii koobaad ee baarlamaanka 11aad ee dalka isla markaana ay fasax galeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Sheekh Aadan Madoobe ayaa tan iyo markii la doortay u baxay safarro kala duwan waxa uuna gaaray dalal ay ka mid yihiin Kenya, Sacuudiga iyo Turkiga warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xalay ka dhacay qayb ka mid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kaasi oo la beegsaday gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Macalin Xuseen Filaweyne kaasi oo la soo wariyay inuu qaraxaasi ku dhintay Allah u naxariistay marxuumka ayaa ku sugnaa xilliga la qarxiyay xaafadda Buulamaaxay oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in marxuumka qarax loogu xiray gaarigiisa isla markaana uu ku dhintay isla goobta sida ay shaaciyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Yaaqshiid Maryan Maxamed oo ah marwada mas'uulka geeriyooday ayaa dhankeeda sheegtay in qaraxa gudoomiyaha lagu xiray gaarigiisa xilli uu ka soo baxay xaafadda gaar ahaan gurigiisa oo ku yaala gudaha degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho gaariga wax loogu xiray ahayd kursiga uu ku fadhiyay la kacday keligii ayuu ahaa markuu qaraxu dhacay ayay tiri Maryan Maxamed sidoo kale waxaa meesha ay wax ka dhaceen tagay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kala duwan ka sameeyay halkaasi balse weli wax wara kama soo bixin qaraxa dilka loo geystay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada Yaaqshiid ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaan darri oo ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli ay dhankooda howlgallo ballaaran wadaan ciidamada ammaanka dawladda si ay u sugaan amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka marka hore waa kuma laba doon بعد الصلاحات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أنا ما تصنتهاي أنا بدأ محمد حسن عاد أنا قدوميها قال عنا كبيرة هوي وأنا كان قرر فدية أنا قضيت دقمات نواهي قضيت سياسة قضيت قرن نواهي دولها ودنا كجرة يهو كجرة انت وحن قرأي سامي والله
nabadoonnada aan qarna nabadoonka hoose kasoo bilaaba asoo kor u aada anigu waxaan kasoo bilaabay kor aniga marka hore siyaasaddan waa iga galay waxaan isku dayay inaan qabto xilka la yidhaahdo xildhibaan waxaan u tegay dowladdii laga soo bilaabay carti oo jabuuti ay martigelinaysay tuulo cartina lagu martigelinayay dowladdaas usan la socdo ahaada 2000 ayaa la soo iglaalay waxaan isu sharaxay xildhibaan ana weliba dadkii markaas firfircoonay oo ururkii USC horkacayay oo shirarkii madhalayska u badnaay oo wadanka gudihiisa lagu qabanayay dibaddaba dowr muhiim ku lahay waxaan isu arkay inaan ku guulaysan karo ama u qalmo xildhibaan inaan noqdo oon ku matala kursigaas meeshaan waan ka dhashay dad badanaa isu sharaxay oo markaas meesha joogay alab iyo qadarna waa suuragelooyday xildhibaanka waa waayey kadib waxaa ila batay marka dadka hanka leh oo annaga nagu abtirsada oo kursigaas banaynay marka waa fikri waxaa ii muuqweysay fursad aan ku heli karo xildhibaan marka hareerahan fiigshay waxaa marka ka door baday inuu noqdo oday dhaqameed siyaasadna dowr muhiima ku leh xildhibaanada dhisa madaxweynayaasha dhisa dowladdana saas meeshaas uga qaabilsan oo siyaasadda iyo dharanka labadaba isku haysta meeshaasaan maaragtay ka galay shaqadan haddaan haayo kadib badan haddii nin soo caanbaxayo soomaalida laga yaqaano shaqooyin badan soo qabtaan runtii marka waxaan isleeyahay dadka hadda farakutiriska oo wadanka kule magaca ayaan ka mid ah sidaad ogtahay madaxnimadu saddexay ku timaadaa mansab la qabto waa ku timaadaa magacna waa ku timaadaa maal ilaahay ku siima ku timaadaa aniga mideeda magacay ku timiday marka dadka farakutiriska la yaqaano wadanka aad looga yaqaan ayaan ka mid ahay bulshadu marka ugu bartood waxaan ka shaqayso ijtimaaciga arrimaha bulshada ka shaqayso qofna saydka wanaagsanna waa laga arkaa saydka xunna waa laga arkaa taas waa iska wax kale laakiin dadka magaca kule wadanka soomaaliya oo laga yaqaano ka mid ahay wada dhaqan runtii waxaan ahay muxuu ahaay wadanka waxaana ka soo qabtay magacana ku leh hadda dhintan xayaatada oo waxaan diyaar u ahay inaan booskaas kasii shaqeeyo haddaan leh waayahay waxaad damacday xildhibaan aad noqoto 2000 waa kuu suurtageli weysay bas waxaad xaarxaaratay la yidhaahdo dhaqanka meeshaasaad ka soo bilowday halka maanta aad joogto si kooban marka siyaasiyaan damcay iyo dhaqanaa noqday waa laba isi saaran siyaasadda shaqa kuma leed odo dhaqameedaa tahay saas miya hadda xaaladda la joogo horta sidaasaba siyaasi waxaa ninka siyaasada wax ka door aan siyaasiya siyaasada qof la dhashay oo asiga siyaasi leeyahay maraas ku yaala ma jiro laakiin siyaasi waxaa laga qan qofka siyaasadda ku shaqeeya ama markaas ku jira inuu wax ku helo raadkiin ku jooga hadda aniga siyaasad meelahaas ka dhigay laakiin taab waxaan waa shaqaysaa dabcan oday dhaqameed waxaan ahay oo oday qarana dowladdan dhisaa madaxweynaha dhisaa xildhibaanaan dhisaa wasiiraan dhisaa kuwaasan marka ku jeel ahayo wax la leeyahay marka hadda oday dhaqameedna waa ahay oday siyaasadaan ahay oo haddaba madaxweynaha midka hadda wadanka ka tegey iyo midka kasii horreeyey iyo midka intaba waxaan u ahay oo teesaraadtaan ahay waxaan ahay la taliyaha madaxweynaha ee xagga dhaqanka taytalkaasaan lehay madaxweyne xasan sheekh shariif farmaajo haddana waa rajakaan usii helanaa waayahay waxaan usoo qaatay arrintaasi 10 sano ka hor waxaad ka karinaysay siyaasadda adigooda dhaqameed ah waxaan kaloo hayaa warbixin ciwaankeeda looga dhigay xaad oo puntland uga digay fitno iyo colaad sidoo kale xaad oo ka digay muddo kororsi dowladdii madaxweyne cabdullaahi farmaajo xaad oo fahad iyo farmaajo dalka iyaysan u horseedin colaado dhahaya markaad ka shaqaynayso waxyaabahaas soomaaliyadu ma ahan waxaad ka tallaabtay xeendaabkii dhaqanka oo siyaasaddii aad ka karinaysaa may adeer laba ku sheego waxaan ka bilaaba aniga moogta warbaahinta marka iska kaasiinay iska baraya aniga waxaan wada siyaasade siyaasadna horta sideedaba isdhex yaalin iyo dhaqanku siad ogtahay anigu marka hore profilkeyga waxuu ahay siyaasi
laakiin markaan siyaasadda fursad ka waayey waa tahay daawadayaal waxaa intaas inooga dhan warkeeni waad kala socoteen shabakada warar TV intaanu ku kulmi doonno warkeenan mid ka xiga waa bahda shabakada warar TV oo isku duuban idinla dhammaantiinba sidaas iyo nabadgelyo